habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daacish qodobada aan caawideyn hayana waxa kamid ah ciidamada difaaca Puntland oo agabkii ugu badnaa kala wareegay kooxda Daacish fakhriyeena waa isdeen waliba waxa kale waa horaanka koowaad maxaa ka dambeeya wada kuwa buuxa iyo sidoo kale booliska Puntland oo fariin adag u diray shacabka Puntland warbixinadaas oo faahfaahsan daawada intaan kula wadaagan wax ka codsanaya in YouTube-ka ku soo biirto muuqaalkan leegi saarto gambalelkana furto si ay ku soo garanin warbixinada maalinlaha ee halkan ku soo gudbino hadii aan ku bilaabo ciidamada difaaca Puntland oo ku guda jira wajiga saddexaad ee howlgalka Hilaac ayaa kooxda argagixisada ee Daacish maanta kala wareegay agabkii ugu badnaa oo ay kooxdu ku aastay dhulka hoostiisa si aysan ciidamada Puntland u helin balse ciidamada Puntland oo maanta gaaray goobo hor leh oo ay kooxdu ku lahayd buuraha fog ee Calmiskaad ayaa ciidamadu ka heleen agab isugu jira rasaas mootooyin agab caafimaad iyo agabyo kale oo ka mid yihiin qaraxyo aan diyaarsanayn kuwaas oo la rabay in lagu waxyeeleeyo shacab weynaha Puntland ciidamada oo ka hadlay agabka ay qabsadeen ayaa yiri agabkani waa mid cusub oo ay kooxdu soo iibsatay dhawaan lana filayo in ay soo iibsadeen markii madaxweynaha dawladda Puntland Sida Abdullaahi Deni ku dhawaaqay dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish waxayna sheegeen ciidamadu in ay kooxdu isdiyaarinayeen labadii bilood oo ay ciidamada Puntland lagu diyaarinayay magaalada Carmo si ay u galaaniin howlgalkan hadda ka socda buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari ee Puntland dhanka kale askartii qaybta ka ahayd howlgalkan ayaa iyaguna ka dhargay qoryo ay ka heleen godadkan oo ay kooxdu ku qarsadeen waxayna ku dhawaaqayeen ciidamada Puntland inay ka dhargeen hub casri ah oo qaali ah waana fursad kale oo ciidamada ku dhiirigelinaysa inay dagaalka ku sii socdaaniin maadaama ay halkaasi ka helayaan hub iyo agabyo kale oo casri ah oo ay kooxdu halkaasi ku aasatay uguna talagashay inay ciidamada Puntland kula dagaalamaan balse iyaga ayaa laga qabsaday oo haddana la rabaa in lagu dagaalamo 3 bilood kadib Puntland ayaa guul weyn ka joogta kooxda Daacish oo muddo dhowr iyo 10 sano ah saldhigyo iyo xarumo ka dhisanaysay buuraha Calmiskaad si ay u qabsato magaalada Boosaaso iyo guud ahaan Puntland ba sida uu dhawaan ka dhawaajiyay madaxweynaha dawladda Puntland oo sheegay in gantaalo dhawaan lagala wareegay kooxda ay rabtay kooxdu inay ku qabsato magaalada Boosaaso sidaasna intaas ka bacdina ay u guda gasho kooxdu sida ay u qabsan lahayd deegaanada kale ee Puntland dhanka kale waxay guushaan muujinaysaa dhiiranaanta iyo hal adayga ciidamada Puntland oo muujiyay inay dhulkan iyagu leeyihiin ayna sii joogi karin cid kale oo dalal shisheeye ka timid dhanka kale ciidamada booliska Puntland oo howlgallo culus ka wada magaalooyinka Puntland ayaa shacabka Puntland ugu baaqay in laga shaqeeyo amniga Puntland si looga adkaado kooxaha argagixisada ah ee Daacish oo inta badan ku soo firxaday magaalooyinka iyo sidoo kale deegaanada Puntland markii lagu soo jabiyay buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari ee Puntland shacabka Puntland ayaa iyagu kaalin weyn ka qaatay muddadii uu socday howlgalka Hilaac waxayna ka qayb qaateen in la soo qabto xubno badan oo kamid ah kooxda Daacish kuwaas oo ku dhumaalaysanayay magaalooyinka iyo sidoo kale deegaanada Puntland sidoo kale shacabku waxay ka qayb qaateen in ciidanka ay ka taageeraan dhinacyada haday noqon lahayd cuntada maaliyadda shidaalka iyo in ay dhiirigeliyaan oo banaabaxyo waaweyn u sameeyaan oo ay ku taageerayaan ciidamada difaaca Puntland iyo sidoo kale howlgalka Hilaac taasna waxay ciidamada Puntland tusisay in shacabkoodu dhamaantood ay garab taagan yihiin waxayna ku dhiiradeen inay guulo waaweyn ka gaareen howlgalka Hilaac ee ka socda buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari Puntland daawada intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa warbixinteena caawa waxaan ka codsanayaa hadii aad YouTube-ka ku cusub tahay inaad ku soo biirto sidoo kale inaad muuqaalkan like saarto gambalelkana furto si ay ku soo garanin warbixinada maalinlaha ee halkan ku soo gudbino